munaasabadan oo ka dhacday magaalada Hargeysa oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa ujeedadoodu ahayd mid lagu xoojinayo wada shaqeynta wasaaradda shaqo-gelinta iyo hay'adaha caalamiga ah ee la shaqeeya isla markaana lagu abaalmarinayay hay'adihii sida dhow ula shaqeeyay wasaaraddaasi sanadkii tagay waxaana intay socotay munaasabadaasi lagu soo bandhigay waxqabadka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland iyo qorshe hawleedyada ay ka duulayso sanadaha soo socda ugu horreyn waxa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland محمد علمي آذن الكعسي آدي بعد ما سنتهين هيدها كلا دول إن لا سوى شقيني وسارة الشقيقين تيا رمها بالشدة وحنين لكم إسلام هاي هلا سيد الدرجلي وذا شقين وهلا سي حوجيو استرينجني بارتنر شبكة كده حية وسارة الشقيقين تا هي رمها بالشدة هي دمان دنياش لا شقية تاسنا وحينو سامح يسا إن إمكا قرون أي نكدولو قرون كوحنا وجدنا بلاتفورم استراتيجية oo ku qorshaysan kii kale ee National Development Plan 2 qaranka inaynu ku wada shaqeyno dhamaan daneeyaashu barnaamijkan ugu la shaqeeyaan dib u habeyn fara badan dardargelin fara badan dhaadhicin fara badan oo ma garanaysaa ilaa heer gobol shaqooyinkii wasaaradda la xoojinayo iyo maxaa sanadka 2019 wasaaradda noogu mudan Khadra Umar oo ka socotay dalada Nafis Network ayaa iyaduna hadal kooban ka jeedisay halkaasi runtii halka maanta lagu soo bandhigtay waxqabadkoodii iyo waxyaabaha u qorshaysan waxaan oran karaa waa wasaaradda inala wadaagtay runtii howlaha ay u hayso bulshadeeda waa shukri cala waajiba waa wixii loo doortay waana shaqada ay ku suntan tahay idin ku hadlayay afka hay'adaha caalamiga ah ee la shaqeeya wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa dhankooda sheegay in ay sii wadayaan wada shaqeynta ka dhaxaysa wasaaradda shaqo-gelinta iyo hay'adahooga لكن أنا أقول هذا طلب هيدا إسلامي يكون بهوي يكون مل ويكون بهوي كبدان لباتين هيدود ورنتي ولا شقين لا له وزارة شقة يعلمها برشدة وأيوه وحن هاي تبدان هيدا وبدان إلا شقيين عقومة شقة الوزارة اللي قبلنا هو بدأت بالعالم وحين وبدان تحري وكنت أما تغييرات دولة حولها أي كلامنا أم أي شغل أي وضع أنا وقرنتي أنت بدل حوق ساعنا أرمي الدقيقة اللي سوق البنادة wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwahinda Jaamac Xirsi Gaani ayaa furitaankii munaasabadaasi hadal ka jeedisay jeedadayadu waxay tahay inaanu idin sheegno idinna cadayno wasaaraddu inay idin xasuusan tahay isla markaana waxay duruuftu tahli weyda mooyaane aanay jirin wax kala gudbisii ama wax kala duwanaanshihi waxaanu idinka raali gelinaynaa qof kasta oo maanta shahaadada naga waaya oo aanan xusinin maaha mid aan waxba na tarin ee waa mid runtii wax badan nala qabtay malaha waxaa la yaab noqotay inay boolisku qabtaan 20 iyo inuu dhigma ayaa malaha la yaab noqotay ee awalba dee qofku ama derbi ha jiifo ama gurigooda ha joogay qofkii caruuraha dambi gala ama dhalinyaraha dambi gala waa la xidhxidhi jiray sidaa darteed runtii dad fara badan oo aan oran karayo waxaanay fahmin wasaaradda iyo waxa ay qabato caruurtii de afka u bartay inaanu nahna caruurtii laakiin maxkamaddu waxay tiri waa dad qaangaadha oo da'dii xadhiga ay ku galayeen gaadhay marka anagu darbi jiifka dartii u hadlayna inaanu dhalinyaradii halkaa laga qabqabtay aanu soo eegno horta oo ay guddidaasi xaqiiqo ka keento xadhigoodu ma yahay mid dhaba oo ay tahay da'dii anagu dee garsoorka waanu ku kalsoonaysaan horeba u sheegay sidaa darteed maanan dhammaystirin baahiyaadka ay u baahan yihiin dadka nuguli hadday tahay dhanka qoysaska saboolka ah hadday tahay dhalinyarada shaqo abuurkeeda hadday tahay hanashada darbijiifka hadday tahay horumarinta naafada hadday tahay dadka dhibirka ah waxaan qabaa inaanay nagu jirin wax akrashihi runtii ay tahay awoodii aanu haynay miisaaniyadda qaranka Soomaaliland ayaa wasaaradani ku shaqaysaa miisaaniyadda qaranka Soomaalilandna waxay wax ka heshaa oo kaliyaato Soomaaliland gudaheeda ugu dambeyntina wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland waxay abaalmarino guddoonsiisay hay'adihii sida dhow ula shaqeeyay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland iyada oo ku maamustay shahaado sharaf
cabdulqaadir cabdulaahi nuur warbaahinta qaranka Somaliland Hargeysa.